bulshada ka soo jeeda awdal iyo salal gaar ahaan dhalinyarada haweenka iyo ragaba waxaan leeyahay fariinta xukuumadda ayaan u diray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaheena waxa weeye waxaan ku aqbalay xilkan waxay hadalkaagii ahaa inaynu diyaar u nahay inaynu ka jawaabno dareenka bulshada inta meesha ku wada nool waa ehel oo wadaag ah oo wada degan ah qarniyo ilaa qiyaamuhu dhacayna wada degaanaya marka hore Ilaahay baa mahad leh waxaan ku jirnaa maalintii toddobaad ee ka soo wareegatay dhibtii ka dhacday Boorama marka hore waxaan tacsi tiiraanyada u dirayaa waalidiintii walaalihii ehelkii qaraabadii iyo dhammaan bulshada gobolka Awdal ay ka baxeen dhalinyaradii 20 oo badnaa ku dhawaa iyo intii dhaawacantay xilli adag ayuu madaxweynuhu ii magacaabay inaan hogaamiyo oo waajiho waqtiga adag si aynu xaaladda gobolka ugu soo celino nolosheedii mid caadi ah waxaan rabaa halkan inaan ka diro dhowr fariimood oo aanu kala diro ugu horreyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi bulshada gobolka Awdal gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka dhaqanka haldoorka iyo guud ahaan bulshadeena iyo waliba bulshada aynu wadaagno ehelnimada ee ku kala nool Djibouti iyo dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya fariinta xukuumadda ayaan u diray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaheena waxa weeye waxaan ku aqbalay xilkan waxay hadalkaagii ahaa inaynu diyaar u nahay inaynu ka jawaabno dareenka bulshada oo aynu dejino isla markaana aynu la dareen noqono waxaan ku qadimayaa madaxweyne qolayska rabshadaha inta la kiciyay inuu ka durugsan yahay go'aankii ka dhacay arrintii buuq ka dhacay sidaa darteed waxaanu diyaar garoobay haddii alla yidhaa inaynu si dhab u wajahno isla xisaabtan si aynu xaqiijino wadajirka shacabka iyo horumarka Soomaaliland bulshada ka soo jeeda awdal iyo salal gaar ahaan dhalinyarada haweenka iyo ragaba waxaan leeyahay fariin adag baad dirteen fariin sabab u noqotay inay galaafato dhalinyaro badan in badanna u dhaawacan yihiin oo aynaan jeclayn inay dhacdo waxaad rabtaani waa mustaqbal wacan oo rajo idin gelin kara waxaana muhiim ah inaynu ka yeelano aragti midaysan si aynu taa ku xaqiijinayno dhalinyarada iyo haweenka reer Awdal iyo salal ee qurbaha jooga waxaan ka codsanayaa in waxtarkoodu aanu nagu noqon waxyeelo waxtarkoodu waa inuu noqdaa mid mustaqbalka ubadka wax ka taraya ee aanu noqon mid noloshooda galaafanaya waxaan leeyahay oo tusaale idinku soo qaadaya waxtarka qurba jooga hablaha salal ay hablaha salaxley ay hadiye jeer u feejigan yihiin ay u qaadaan urursadaan waxay xaqiijiyeen inay ka dhisaan deegaankooda iskuulo isbitaallo dugsiyo sare iyo kuwa farsamo waxaan jeclaan lahaa in waxtar noocaas oo kale oo bulshada wax taraya aad tartaan ana waxtarkiinu noqon mid bulshada dib u abuuraya iyo dhibaato kale waxaan shacabka reer Awdal iyo Salal ugu baaqayaa inay isdejiyaan si loo xaqiijiyo inaynu hawlgallo inaynu dhalinyaradeenii dhibta ku dhacday daryeelkooda u hawlgallo oo aanu u raadino caafimaadkooda wixii uu ku dhamaystirmayo Ilaahay ha noo fududeeyo intii u baahan dalka gudihiisa wax laga qaban karo iyo kuwii u baahan in dalka dabadiisa loo qaadaba noo siiyo waqti naguna garab galab inaan hawsha galno qurba joogga qudhooda waxaan ka codsanaynaa oo noo furi doonaa accountyo in ay nagala qayb qaataan taakulaintooda sidii dadka wax loogu qaban lahaa waxaan u soo degayaa bulshada Ciise iyo Samaroon si gaar ah bishiina dhaaftay waxa dhex mariyay ficil hadalla futuxaan leh
oo gaadhsiiyey ilaa ogaasadii ugu sarreeyey inay colaad ku baaqaan waa waxaynu ka baaqsan karaynay marka hore waxaan leeyahay ficilku waa camal shaydaan wax wanaagsanna maaha ilaahayna haynaga qaboojiyo waxaan leeyahay waxaynu nahay ehel isdhalay inta meesha ku wada nooli waa ehel ood wadaag ah oo wada deganaa qarniyo ilaa qiyaamuhu dhacayana wada deganaanaya mushkiladaha siyaasadda ma aha inay bulshada kala qaybiyaan ee waa inay bulshada isu keenaan ay waxtaraan waxaa xaqiiqo ah in saylac iyo Lughaya iyo xeebaha galbeed ee deegaankooda ay ka qatan yihiin horumarkii bulshada wax nolol oo ka jirtaana aanu jirin sheegasho wax uma tarayso haddaan ummadda noloshooda wax laga taray waxaa hubaal ah in aanay helin horumar intii dawladda ee soo matay hadday tahay kuwii Somaliland iyo hadday tahay kuwii Soomaaliya sidaa darteed waxaa hubaal ah haddii aynu wada jir uga howlgeli lahayn in dadkeena wax loo qabto deegaankeena wax laga qabto in wax badan qabsoomi lahaayeen wada jirka ayaa lagu helaa naxariista Ilaahay waxaan leeyahay aynu howlgallo dadkeena iyo dalkeena isku soo dhawaan lahaayeen waxna wada qabsan lahaayeen bulshada dhalinyarada waxaan leeyahay wax qabadkiinu iyo kaalintiinu waa kaalin muuqata oo loo baahan yahay waxaynu wada tashan doonaa si dhow waanaynu isarki doonaa kulamo badanna waynu yeelan doonaa waxaan u baahanahay inaynu meel uga soo wada jeesano waxa aynu doonayno inuu gobolkan ka yeelo iyo waxaynu ku heli karayno ku xaqiijinayno horumarka gobolka shaqo abuurkeeda iyo si aynu mashaariic ugu heli lahayn haddii alla yidhaahdo waxaan ugu dambayn odhanayaa waxa inagu habsaday waa abaaro soo socda bariga ha u darnaato innaga laftirkeena abaar way nahaysaa labadan gobol ee hadda aynu taaganahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta inaga soo jabiyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu colaadda inaga soo jabiyo waxaan leeyahay bulshada gadabuursiga iyo ciisahaba waxaynu wada deganahay saddex dal oo ilaahay nagu beeray haddaynu wada jir uga faa'iidaysano waa arrin wanaagsan marka bulshooyinka ku nool ganacsatada maamulada xubnaha dawladda kaga jira iyo bulshada inteeda kaleba waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan wada jirka shacabka iyo isu soo dhawayntooda ilaahay baa mahad leh allah inagu asturo inaynu ummadeena u shaqeyno waxna u qabano ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha oo xilliga adagii magacaabay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu yahay igu asturo hawsha oo eegmaday igana dhigo kii bulshadana wax tara qarannimada iyo isku soo dhawaynta bulshadana qayb weyn ka qaata